لذلك إلهي سبحانه وتعالى عفسك وحو كبحيا دم داف وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم ميين ننشعلين إلهي إنه يدين دافر واتعش بحية أو عفية أو ولاله إنك لسامحة إلهي وإذن دافية وكان النبي أنه يري عليه الصلاة والسلام من لا يرحم لا يرحم ومن لا يغفر لا يغفر له قفك آن نحريسا لو من نحريسته قفك آن دافن الله من داف من ربط إلهي نكون داف ولا لها أكله وحا يكوغو سميين وآن مناسبك كو أهين انت عندها اسكو قبستid oo nafiya shaytaan la dirirtid si ilaahay kuugu dhaafo u dhaaf waxa kamida maxaasinta iyo wanaaga uu leeyahay afwigu wuxuu sabab u yahay in la gaaro al mawadda wal mahabba bayna an-nas in dadku isticlaadaan oo galgacayl u dhexmaro waxa lagu gaaraa ina ka bilowdi adugu waxa laga galay oo aan munaasabka ku ahayn cafis oo walaalkaaga cafis ilaahi waa ka ornay wala tastawi alhasanatu wala as-sayyi'ah masna halad xun iyo mid fiican masna idfa' billati hiya ahsan mar walba waxa ka horgeysa xaalada xun oo lagu la iimaanayo mid wanaaga badan ka horgee oo waxa noqotaa qofka mar walba asagu wanaaga bixiya qowlka wanaagsan iyo ficilka wanaagsan taagnaada maxaa ka dhalanaya fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawatun kaannahu waliyyun hamim ki adaawadu idinka dhaxaysiya adiga waxa iimaanaya inuu ku noqdo wali saaxiib dhow inuu ku noqdo oo dhab ah ayaa iimaanaysa maadaama adoo ka garle aad bixisay cafis xoolahaagii buu qaata waa cafisay cirdigaagiya sharaftaadii buu wax ka sheegay waa cafisay waa ku dilay waa cafisay dhibaatooyin badan buu ku geystay waa ku khiyaanay waa cafisay maadaama aad noqotay ninka cafiga bixiyay dhibanahana ahaa waxa iimaanaysa in waxa weeyaan uu ka dhigto saaxiib dhab ah oo daacad ku noqda iimaanaysa maxaasinul afwi oo la bixiyo dadka la cafiyo waxa qofku ku gaaraa darajo uunan si kale ku gaareen ilaahi agtiisa waka nabigu yiri alayhi salatu wasalaam hadithka imam muslim saddex arimood ma naqasat sadaqatun min mal sadaqa la bixiyo maal ma nuqsaamiso waligaha ka baqay wama zaada allah 'abdan bi'afwin illa 'izza adonna عفوي او بخيي الهي وما زياديه الا عزي شرف مويان hadii dadka ay la tahay inay agtooda aad noqonaysid qof liito laga adkaaday عزي iyo sharaf baad ku gaaraysaa ilaahay agtiisa subhanahu wa ta'ala aadan dariiq kale ku gaartay wama tawaada'a ahad lillah illa rafa'ahu Allah qof ilaahay dartii isku liido u tawaaduca ma jiro illa ilaahay ba koriyala oo marka ilaahay dartii u tawaaducdid sha'nigaaga ilaahay weyneynaya marka cafisid ayaa ilaahay izzi ya sharaf ku ziyaadinaya walidalika ba nabiyullaahi Muusa alayhi salaam ilaahay uu weydiiyay su'aal lixa waxa kamid ahaa fa ayu ibadika a'az adoomadaada kuweeba ugu sharaf badan alladhi idha qadara ghafar waxa ugu sharaf badan ba ilaahay yiri midka markuu awoodo inuu aarsado iska dhaafa oo cafiya waa awooda inuu dadkii dhibka u geysta tilaabo ka qaado laakiin wuxuu fiiriyay xagga ilaahay subhanahu wa ta'ala markaas wuxuu doortay si ilaahay asagana ugu dhaafo oo ilaahay u cafiyo inuu adoomada iska cafiyo kaas weeye عفوك dadka la cafiyo oo la tanaazulo wa min sifaati al-anbiya
ومن صفات المتقين ومن صفات المحسنين ذاتك إلهي كبقي ومحسنين تا صفات كودا ويان وقوة جنة اللو دياريي إلهي محولي وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين جنة وين كبضا وصدا واسعة إلهي وحي اللو دياريي كوا متقين تا وقوة الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ محاكا والعافين عن الناس ضدك عافيان والله يحب المحسنين ضدك إحسان كسماية أو ضدك عافيان إلهي وجعلي بلو فيرسو وحا إلهي أبلن قادة جنة قيمها بدن ضدك إلهي كعب صدا وصفات كودنا أي كمتهي إني عافيان ضدك إني عافيان والعافين عن الناس وأهل الإحسان أنبياء إلهي مركا في الصحيحين من حديث ابن مسعود وحلي عبد الله بن مسعود النبي قال مال إيجي سقوا كحكايون يوكشكين يا النبي كم إذا أنبياء دي هوري ضربه قومه فأدموه قوم في سوى قراعي ويبينيين ويكهري مادين قراع بأقدرين markaasuu dhiiggii ay ka daadiyeen ba wajigiisa ka masaxaya xaaladiisa oo halka maraysa ayuu wuxuu leeyahay nabigaasi allahumma ighfir liqawmi fa innahum la ya'lamun ilaahu u dhaaf qoomkayga ilaahu u dhaaf waxba garamahaya ilaahu u dhaaf isagii oo dhig ka socdo oo dilan ayuu ilaahay dambi dhaaf weydiinay wa ka nabigu yiri alayhi salatu wasalaam qof ma jiro dhaawac loo geysanayo dhaawacaas loo geystayna sadaqaysanayo qofkii u geystay cafinahaya illa kaffara Allahu anhu mithla ma tasaddaq ilaahi wuxuu u dhaafaa intii u dhaafay oo kale ilaahi u dhaafa subhanahu wa ta'ala nabigeena alayhi salatu wasalaam tilmaamihiisa waxaa ku qornaa kitaabkii injiil ahaa kan nabigu yiri maktuubun fil injiil waxaa horay loogu qoray injiil la fadl wala ghaliid wala sakhab bil aswaq wala yajzi bis sayyi'ati mithlaha bal ya'fu wa yasfah ma aha nabiga iimaan doona oo ilaahay soo saari doono oo anbiyada lagu khatimi doono mid qalbi adag oo lisaanka kan oo suuqyada dhawaaqa suuqa qayladaan la taagan ganacsi iyo wax la mid ah qayladaan suuqa la taagan ma aha waxa lagu tilmaama wala yajzi bis sayyi'ati mithlaha xumaanta lagu sameynayana ayadoo kale kuma amal gudo bal ya'fu wa yasfah wa afiya wana iska dhaafa wa afiya tilmaantaas waxa lahaa nabigeena alayhi salatu wasalaam وعائشة أرنيس رضي الله عنها ما انتقم رسول الله لنفسه قط رسول كالله ولقيس لباتي حمان لوجه استمرنا وكما أرسلين نفتي سوء ما أرجلن هذه دين كإلهي اللي حد قد بتلاب وكقادها ذاتك كو حد قد لكن وحي أسجى نفتي ساعة نبي مرنا وما أرسلين عليه الصلاة والسلام أرنك أسجى وحي تصنع هي ولا ليال بشام بركيسن قيمها أي لا ضهي إلهي بركي إيا عظمة إلهي أكتسا أي كلا ضهي إيا خير كأن رادنا إنه حسابته كدر سنه إنه بحنا عفسك إنه عفسك بحنا محانك لو كوه لينا نبي عليه الصلاة والسلام وحيري تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس مالين كستو السنين يا مالين كستو خميسة جنة إرده هذا والله فراه فيغفر الله لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلهي وأنافيا الضون كستو إلهي أن شرك ييل إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء إلا قف أصغي ولالك سي عداوة كده حيسماهن فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا أنظروا هذين حتى يصطلحا أنظروا هذين حتى يصطلحا marka malafkooda la soo rafciyo
oo isniin kasta iyo khamiis kasta loo dhaafayo qof kasta oo ay ilaahay u shirki yeelin waxaa laga reebayaa oo keli ah laba qof oo muslimiin ah oo ilaahay aan u shirki yeelin laakiin cadaawad ay ka dhaxayso ayaa la leeyahay labadaan u kaadiya ilaa malafkooda ilaa ay soo heshiiyaan u kaadiya labadaan waa laga reebay haddii khamiistii hore lagaa reebay oo isniintii lagaa reebay oo bishii hore lagaa reebay sanadkii hore lagaa reebay dadkaas ilaahay khalqigiisa ah oo faraha badan oo malaayiinta ah oo jannada irdaheeda loo furay oo ilaahay u dhaafayo haddii malafkaagii la soo celiyey oo la soo celiyey oo la soo celiyey miyaynan habboonayn inaad noqotid midka tanaasulo adugu midka naxariista adugu isagu raadiya midka mansilada sare ilaahay agtiisa dalbada midka cafiga bixiya oo asagu tanaasula inaad noqotid miyaysan habboonayn si ilaahay kuugu dhaafo subxaanahu wa tacaala si aad ciz iyo sharaf u gaartid arrinka isagaa daruuri weeyaan